magaalada Kismaayo kaasatan dalxiiska waxaa joogaa nin qabo gabadhiisa uu qabaa midii kaliya haysto oo naaka dhigto kaaga daran caruur ay u dhashay Soomaaliya waxaa leeyahay wax xuro budi waay naxariistii dheer xaggii waxaasoo kale naga buuxo inaa lilaahi gabadha maxay ula joogtaa iyada oo og in aabaheeda uu yahay isla markaana sariir ugu koraysaa ilmana u sii dhalaysa ninka gabadhiisa qabo Kismaayo joogaa dalxiisku degan dadka dalxiiska degan badankood way yaqaanaan laakiin way ka cabsanayaan ninkaas waa nin falfallow oo sixiro leh oo geedaha caleenta ka buubiyo hadda ka hor nin wadaada masaajidka ka sheegay ninka asaga ahaa laba habeen ma u noolaa laba habeen mar kale nin baa u maayo wuxuu yidhi niyo falkan aad ku dhex jirto waan arkaa ummadda Soomaaliyeed aan kula wadaagi wax walba wax laga qaban karin oo kula tiigsan ninka asaga ahaa xarkiisu cunsiye hadda alana muu dhimanin mana noolo subhanallah 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 inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un war meesha arrinkan ay ka dhacayso muwaanay dad danqado oo damiir leh oo diinta islaamka iyo dhaqanka suuban ee Soomaalidu jeclaan ay joogeen sidee bay ku suuragalaysaa aabba gabadhiisa inuu xaas ahaan u haysto oo guriga ay u joogto caruurna ay u dhasho cidii isku dayda arrinka inay ka hadashana la sixayo kuwana aakhiro loo diray السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا المرة البودية كجوتان وقتي وياه هذين وعنا. كسر هذا مقال معجزة أو قفكي مقلا كي أركابه كان مقلنا وديها فرت الجشن دونه كي أركنا وإنديه سحران دونه. خلبي آيات كن عدون تقفك وها عن هاتن كوسو وضوء سمي. أنا هرجع كوسيه مقال كان أداون دون تنوح وكوسه سنة هاي. oday Soomaali ah oo gabar isaga u dhalay guriga ku haysto xaas ahaan ama inay xaaskiisa tahay isla markaana uu qaaday caruur si dhalaysa wali aabaha ma ogamiya in gabadhiisa ay tahay isla markaana ay dhiigiisa tahay sinaba aan ugu banaanayn in uu guursado ama in uu ka dhigto xaas ma wala yahay mise uu fiyo yahay maxaa ku dhacay dadkii ku sugnaa magaalada Kismaayo ee arintan ay ka dhacday maxaa ka jira wararka sheegaya in laba qofood ay isku dayday in kiiskan ay ka hadasho midna aqoon loo diray midna haatan uu magaalada Kismaayo xaafadaha ay ka kooban tahay bacaha ku aruuriyo darbiyada jiifta sixirka waalan oo shakhsigan adeegsanayo miyaa sababay in qof waliba oo Kismaayo ku sugan uu ka gaabsado wax halka ka soconaya dawdal sheekadan waa sheeka cajiib ah oo aad ii danqisay markii aan arkay ama aan maqlayba gabadhaada adigu aad dhashay oo aabaad u tahay sariir intaad saarto dharka ka siibto u galmo subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un waa wax aad iyo aad la yaab qisadan waxay ka dhacday xaafad kamid ah xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ee Jubbaland waxa halkaasi maamulkaasi haya Sheekh Ahmed Islaam Ahmed Madoobe oo aad ku taqiineen inuu ahaa nin diinta mar walba dhankeeda u janjeera isla markaana ka tirsanaa midowgii maxaakiimta islaamiga iyo kooxihii la dagaalamay hogaamiye kooxeedkii Muqdisho ka jiray arrinkan ma maqlin miyaa isaga dad badan ayaa isweydiinayo arrinku waxa la yiri wax qasan maahan oo wax caadi ah oo xaafadda laga og yahayba sida ay dadka xaqiijinayaan muuqaal aan idin soo gudbin doonaan xaqiiqadiisa aad ku arki doontaan dadkoo idin way og yihiin laakiin qof walba wuu cabsanaya waxa uu ka cabsanaya dhagarta qof aabahaasi uu maleegi doono qofkii kiiskaasi ka hadla haddaba waxaan rabaa sababta ku kaliftay dadka inay cabsadaan oo ay runta u sheegi waayeen ama ay dacweyn waayeen ninkani xadgudubka baaxadda weyn u geystay diinta islaamka dhaqanka suuban Soomaalidu isla markaana gabadhiisa guriga xaas aan u haysto u galmoonayo sababta rasmiga ugu aamusan ayaan idin soo gudbinaya balse marka hore aan idin xaqiijiyo arinta sida ay u jirto iyo waliba wiil si niyada ah
u hadlayo isagoo oynayana ka sheekeynayo qisada halka ay ka dhacday cidda ay ku dhacday iyo weliba xaaladda rasmiga ee xaafadaasi ka tirsan Kismaayo ay tahay haatan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ummadda Soomaaliyeed meel walba adduunka ay ka joogtiin salaanta muslimka ay ku salaamay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalayaalo hal dhahay ninkii hal qof oo muslim ceebtiisa qariyo boqolaal ceeb oo si ilaahay la u qarin balse waxaan qarin waayey oo qalbigii uu qarin waayey waa rabaa in la wadaago meeshan wax badan dad waan ka madadaaliyey weligeyna qof ma sabin weligeyna qof ma nabin weligeyna fiis qof ma raadsan balse maanta wixii jiraan rabaa inaan idiin sheego waxaan niyadeeda ku haysan waayey aan rabaa inaan idiin sheego Soomaaliya magaalada Kismaayo kaasatan dalxiiska waxaa joogaa nin qabo gabadhiisa uu qabaa midhii kaliya haysto oo naag ka dhigto kaaga daran carruur ay u dhashay Soomaaliya ninka arrintaas wax ka qaban karo biliis ummadda Soomaaliyeed la gaarsiiyo ninka arrintaas wax ka qaban karo waxaa leeyahay wax xuro budi waay naxariista ilaahay xagee aad waxaasoo kale naga buuxo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Subhanallah, wiilkan waxa uu ka mid yahay dadka baraha bulshada caanka ka ah. Dadka Soomaaliyeed intooda badan way garanayaan. Waad u jeedaa sida uu ilmeenayo waxa dawqiyay oo ilmadaasi ka keenayo xanuunka iyo dareenka qof uu dareemayo markuu arko aabbo gabadhiisa u galmoonayo. La ilaaha illa Allah Muhammadur Rasuulullah. xaafaddu idin sheegay ay ka dhacday qisadan waxa dadku isweydiin karaan markii qisa noocan oo kale ay arkaan war meesha ay ka dhacday qisadan oo aabbahan gabadhiisa xasaan uu guriga ugu haysto maanay dad muslimiina joogin maanay joogin dad u damqada diinta islaamka iyo dhaqanka suuban ee Soomaalida maamulka halkaa ka jira maanay ahayn maamul ku dhaqma diinta islaamka khaasatan deegaanka ama degmada ama xaafadda uu sheegay wiilkan ee dalxiisa soo maamul kama jira waa wax la yaabo sidoo kale dadku waxay isweydiinayaan isaga haddii arrinka uu u bareeray gabadha maxay ula joogtaa iyada oo og in aabbaheeda uu yahay isla markaana sariir ugu koraysaa ilmana usii dhalaysa su'aalahaas waa su'aalaha ka guuxayo maskaxda dadweynaha intii horey u aragtay iyo inta hadda arki doontana arrinka aad bay farta ugu tilmaamayaan annagu cilmul qayb kama hadli karno laakiin wixii si xog ah loo helay ayaan baahinayaa waxaan idin sheegi doonaa waxa kalifi kara gabadh in aabbaheed ay sariir u jiifato isla markaana ur u qaado u dhasho haddana la sii joogto ayaan idin sheegaya iyo dadka laba qofood ama laba shakhsi oo rabay ama isku day arrinkan inay ka hadleen wixii ku dhacay laakiin markan aan in yar oo kale ka daawano walaalkeen oo sharaxaad ka bixinayo hanjabaad isaga qudhiisa loo soo diray oo ah war ninku waa halis haddii aad ka hadasho ama aad hadalladiisa soo qaadato nin gabadhiisii xaas ka dhigto u galmooday adiga kuma naxaye maad ka joogtid waa su'aal isweydiin mudan qof walbana inuu ka fikiro loo baahan yahay laakiin wuu ku dhiiraday sababtoo ah in allaha laa yastaxii min alxaq xaqa ilaahayba kama xishoodo waa la sheegayaa wax walba ay tahay bal in yar aan ku laabano wiilkan iyo waxa xog ah oo dhankiisa haatan naga jiro kadibna aan iskula soo laabana sawaha oo aan idin hayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soomaali Maxamed meel kastoo caalamka ka joogtiin waa idin salaamay salaanta islaamka idinku salaamay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalayaal horta run sheeg waa ceeb sheeg run sheeg waa ceeb sheeg runta bini aadanka kugu nacadu rabo laakiin rabbiga ku qalqay ilaahay ku qalqaa kugu jecel ninka gabadhiisa qabo Kismaayo jooga dalxiisku degan dadka dalxiiska degan badankood way yaqaanaan laakiin way ka cabsanayaan ninkaas waa nin falfallow oo sixiro leh oo geedaha caleenta ka buubiyo hadda ka hor nin wadaada masaajid ka sheegay
ninkii asaga ahaa laba habeen ma u noolaa laba habeen mar kale nin baa u imaaday wuxuu yidhi niyo falkan aad ku dhex jirto waan arkaa ummadda Soomaaliyeed aan kula wadaagi wax walba wax laga qaban karin waan kula tiigsan ninkii asaga ahaa xaarkiisu cunsiye hadda al'aana muu dhimanin mana noolo ninkaas gabadhiisa horta wuu sixray waa gabar aan hadlin oo hadalka dhan uu ku xiray oo cidda iska dhex joogto waana xaaskiisa ilmana way u haysaa aniga gabadhaas darteed hadduu wax ii soo gaaray xaqaas aan sheegay waxbuu ma arko sheekadii oo dhan iyo sababtii isagaa dhameeyey wax kaloo dhiman oo la sheegaa waxay tahay fariin shacabka Soomaaliyeed ku socoto khaasatan shacabka ku dhaqan Jubbaland haddii aan u sii daadego Kismaayo iyo maamulka halkaa ka jiro laakiin caddaynta rasmiga uu bixiyey wiilkan waxay tahay kow gabadha inay sixran tahay sababtoo ah ma jiro gabar iyadoo og aabbaheed la jiifanaysa ma jiro subxaanallah labadii shakhsi ee isku dayay in arrinkan ay kala hadlaan haddii uu ka biyo diidana ay rabeen in bulshada ay u gudbiyaan mid laba beri ma uusan noolayn oo aakhira loo diray waa la dilay midna haatan ayuu saxaradiisa cunayaa oo waxa uu aruurinayaa qashinka iyo bacaha xaafadaasi adigoo jooga xaafadda dalxiis ee Kismaayo isla markaana xogtan og oo si wanaagsan ula socda kana warqaba labadii shakhsi ee isku dayeen in arrinkan ay baayeen midna uu la dilay midna haatan uu saxaradiisa cunayo daawada ma ku dhiiran lahayd inaad ka hadasho mise waad cabsan lahaydoo waxaad dhihi lahayd sida dadkaa loo galay yaan la iigalin oo taydaan badbaadsanaya jawaabtaas idinkaan idinka sugayaa laakiin waxaan muuqaalkayga kusoo gabagabeynayaa fariin Soomaaliyo idil markii aan kasii gudbo Soomaalina reer Kismaayo kadibna maamulka ko shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaa arrinkan ugu baahan yahay in loo wada istaago garba siman si loola dagaalamo sababtoo ah ilaahay baa quraankiisa ku sheegay ولا يفلح الساحر حيث أتى كلام الله أيو كشيء إنني ساحرك أما سحر الله أنا أفلحين وحوصلك إلهي قرانكيس كشيء إنه يسوي برينا يسحر كاس صوبته عقفك منكر أركان وحول محمد صلى الله عليه وسلم يري هكذو لي قعنتيس هدي وسن أوذنها هكذو لي أفكيس هدي وسن أوذنها niyadda ha ka naco oo intaasi ayaa ahba iimaanka inta ugu liito haddii aan usoo daadego reer Kismaayo khaasatan ragow reer dalxiis waxa haatan dhacaya ee aabba gabadhiisa u galmoonaya xaas ahaanna guriga ugu haysta haddii aad maanta shib ka tiraaho beri waxay asiibaysaa ama sidaa oo kale sameynaya mid kale ku sii daysanaya kadibna waxaa Kismaayo iyo dalxiis caadi ka noqon doonto in aabbaha uu guursan doono gabadhiisa waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo fitnada adduunkan markeedii ugu horeysay waxa uu ka bilowday dumar ilaa iyo haatan noogu socda waa tii qaawiil iyo haawiil ay ku dirareen midkoodna loo dilay kii dilayna uu duke tusay sida walaalkiisa uu u aasanayo sida quraanka kariimka ku cad aayada kamid isagoo ka shalaanay dhahay maanta mutuke ayaa tusinaya si aan u aasto walaalkay marka fidnadaasi waxay ka soo bilaabatay dumar haddii aan xusuusta ka soo gudbo oo aan u imaado nuqtada ama meesha muhiimka ah ee reer dalxiis aan u soo jeedinayo war arrinkan u istaago gacmo wada jir bay wax ku gooyaane ha ka cabsanina qofka sixiroolaha lagu sheegay ilaahay aan aqoonin shariiga qayb kamid ah sameynayo ha ka cabsanina ilaaha burinayo saaxirkuna ma aflaxo ilaahay quraankiisa ayuu ku sheegay u kaca si aad munkarkaasi u ziilin lahaydeen haddii aan maamulka u imaado maamulka oo ugu weyn yahay Axmed Madoobe خوف والبو أما ظلم والبو أو كدع ديجان كعدو أد ما مشوا وحد قيب كخالنا يسدم بجيس سببته
adigaa ka tirsan ulul amriga meesha adigaa ah qofka ugu weynaa. haddii aan idin xusuusiyo maalinta yowmal qiyaama 7 qofood ee harka la siin doono waxaa ku jira imaamun caadil waa xaakim daacada ama qof magaalo ama meel haysta oo si xaqa dadka ugu garqaado. sababta halkaa loo geliyey oo 7 qofood oo maalinta yowmal qiyaama harka la siinayo looga mid dhigay waxay tahay sababtoo ah xaakimiinta iyo madaxda adduunka waxay u badan yihiin kuwo aan si xaq ah shaqada bulshada ugu qaban, markii laga reebo dad fara ku tirisa ilaa man raxima rabba iyo qofkuu ilaahay u naxariista mooye. axmedow wax walboo ka dhaca dhulkaad ka taliso dembigiisa qayb baad ku yeelanaysaa haddii aadan u istaagin inaad zuuliso. laakiin waxaa jirta in cudurdaar uu yeelanayo axmed madoobe. cudurdaarka uu yeelanayo ayaa waxa uu noqonayaa marka qof uu madaxweyne yahay uu mansabka sare jiro. khaasatan federalismka maamul goboleedyada waxay sameeyaan golo wasiiro. golaha wasiirada waa golaha fulinta, isagana kor ayuu ka maamulaa. waxaa laga rabay wasiirka diinta iyo waqaafta inuu arrinka u gacan qaado ama uu wax ka geysto si uu munkarkaasi u zuuliyo. wasiirka waxaa kaga sii hooseeya gudoomiyaha Kismaayo. gudoomiyaha Kismaayo waxaa kaga sii hooseeya gudoomiyaha xaafadaasi hadday laan tahay iyo haddii ay waax tahayba gudoomiye waaxeed iyo gudoomiye laameed ayaa kaga sii dhow. marka waxaa la rabay inay meeshaas ka soo bilaabato ilaa ay ka soo gaartay axmed madoobe. haddii aadan axmed madoobe gaarsiinin dadkiinan hoose ee golaha fulinta ku wada jiro, axmed waxa uusan ogeyn way adkaanaysaa inuu dembi ku yeesho. fariintan waxaan u dirayaa dhammaan maamulka Jubbaland. war waxa yeeraya ee kasoo yeeraya Kismaayo ma ahan wax loo dulqaadan karo, ma ahan wax qof muslima uu dhagaysan karo, ma ahan qof diinta islaamka jecel waxa uu maqli karo, ma ahan qof damiir damqanaya leh waxa uu dhagaysan karo, ma ahan wax Soomaali qof ah muslim ah damiir leh dhiig Soomaali uu ku jiro uu adkaysan kara maaha. daawadayaal warkeen idinku dheereen muuqaalka inta ayaan kusoo koobayaa. waxa uu ahaa muuqaal mucjiso ah. dib intaynu mid lacayn barnaamij noocan oo kale ugu kulmi doono, ballanteena waxay tahay arrinkaa in laga guungaaro, xaaladeeda dhabta lasoo ogaado, islamarkaana sidii loo zuulin lahaa dadaalkiisa la galo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. nabadeen.